ayaa ilaahay ka faydaya qof mucsira oo aan waxba haysan qofkii u fududeeya oo wax siiya ama deyn ka saamaxa ilaahay maalinta qiyaamo ayuu mucsirka magaranaysa u fududeeya waayahay sheekh xuseen bal sida ay wax yihiin qolada farsamada ka codsana xaaladda say tahay bal qolada farsamada xaggooda bal aan eegna si bal aynu u aragnaa sida ay xaaladda hadda tahay muuqaaladii qeybaha ka mid ahaa sheekh xuseen intay farsamada noo wadaan arrimaha iyaga ah dad waxaa jira khayrka markii qofka uu bixinahaya ka hor istaaga oo odhanaya ha bixinin odhanahaya guryihii dhismahooda ma qabyo weeyaan odhanaya ilmaha maxaad biro siisani qaar baa odhanaya sheekh xuseenow hagbaddi waa qabyo hagbaddi waa qabyo ha bixinin bal dadka qofka isagoo jecel niyadiisa khayrka jecel midka kale oo ku boorigelinahaya ama ha qaba odageedii ama gabadhi ha ahaato ama caruurtii ama deris ama qaraabo haye sheekh xuseen ilaahay wuxuu leeyahay waman yuuqa shuxa nafsihi fa ulaa'ika hum lmuflixuun qofkii laga ilaaliyo oo ilaahay ka badbaadiyo naftiisa bakiilnimadeeda shuxigu waxa weeyaan waa bakiilnimada waa kasii xeel dheerya qofka bakiilka ahi wixiisuu ku bakiilaya wax bixin mayo oo masalanba ama wax sadaqaysan mayo oo isaga wax bixin mayo laakiin yani qofkii wax baxsanhaya oo kale isagu waxba u dirsan mayo laakiin shaxiixu wuxuu ku xun yahay isaguna wax bixin mayo qofkii wax bixinayano dhanna col buu leeyahay qofkaasu intaa haysta oo hariifayaa leeyahay maxaad caruurtaada siin maxaad adigu qaadan maxaad cuni wa qofkii masalanba wax bixiya ayay hortaagan yahay marka shaxiixu waxa weeyaan ummadihii idinka horeeyey iyaakum washuxa buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam bukliga shadiidka oo masalanba wax walba inaad manciso ood adigu wax walba doontid waa damac weeyaan yani wixii adigu masalanba qofka wax isagu inuu wax qaato un jeceliya laakiin inuu wax bixiyo ma jecla in qof kaloo wax bixinayo u arkana ma jecla marka shuxigaasi wuxuu halaagay buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ummadihii idinka horeeyey ayuu halaagay marka waxa weeyaan waa shuxigu waa ka daran yaha bakiilnimada waa inaad nacdid masalanba qof bini aadana oo wax la baxaya inaad nacdid oo tiraad magaranaysaa waxaaga maxaad u bixinaysaa maxaa yeele waa maanicu lkhayr weeyaan ilah wuxuu leey manaacin lilkhayr muctadin athiim marka qofka xun oo ahlu sharka ah ilah markuu ka hadlaya manaacin lilkhayr buu leeya khayrka ayuu manciyaa oo ishortaaga marka waa dadka masalanba noocaasa oo khayrka ishortaaga waa dad ahlu shara weeyaanoo naar un loogu talagalo ilaahay naarta ugu talagalo weeyaan sheekh xuseen hallo asalaamu calaykum ha wuu ka go-ay qofkaas wuu ka go-ay sheekh xuseen waxaa nagu dambeeyey keesi ismaaciil oo naga soo wacay wadanka sweden waxaa ka horeysay gabadhii umsaad kasoo hashay wadanka norway waxaa kasii horeeyey ninka kasoo gabadhii cabdiya holland kasoo hadashay waxaa kasii horeeyey ninka kasoo hadlay birmingham ahaa xasan khayrlaha siiya sheekh xuseen dadka dhammaantood duca ayay codsanayaan waxayna leeyihiin dadka inay nagu daydaan oo arrintan iyada nagaga daydaan ayaan mataqaanaa mar codsan lahayn warqadda hadda iga soo gaartay dhalinyarada farsamada ducana way codsan lahayn dadkan sheekh xuseen dadka waa loo duceeyey hadaa yaysan masalanba moodin marba haddii ay wax la baxeen waxaan nidhi masalanba xadiiskii u horreeyoon sheegnay rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam subax walba oo salaada masala qoraxdu soo baxdo oo waagu beriyo laba malag baa soo baxaysa labadaa malag midna waa ducayn midna waa habaarami wuxuu leeyahay allaahuma acdi munfiqan khalafan ilaahayow midka wax bixiya bedel khayr qabasi oo wixiisii wax ka khayr badan ugu bedel midna wuxuu odhanhayaa allaahuma acdi mumsikan telefon midkii wixiisa haysta oo aan wax bixin ilaahayow waxa ka baabi'i oo masalanba ka halaag marka qof ilaahay masalan malag ku habaaray ama uu u duceeyey dacwadiisu waa mustajaabo weeyaan markiiba waa la aqbalayaa waa la ajiibi waxa weeyaan dadkaas ilaahay masalanba malaa'ig baa u ducaysay ilaahay baa raalli ka ah annaguna waan u ducaynaynaa ilaahay waxaan leenahay wixii khayra ha u furo wixii sharna ilaahay ha ka waaya dadka gadaal nagaga soo biiray sheekh xuseen jazaaka allahu khayran dadka gadaal kaga soo biiray barnaamijka oo iminka barnaamijka oo la soo kulmay barnaamijkani waa kii loogu talagalay lagu yaboohaya dadka dhibaatooyinka iyo abaaraha ay ku haystaan gudaha wadankii Soomaaliya
iyo Somaliland iyo inta Soomaali degto oo dhan dadkaasi ayaa lagu yaboohayaa sidii biyo iyo loo gaarsiin lahaa cunaan oo biyaha ugu horeeyaan marka waa barnaamijkii gargaarka ee abaaraha ee hay'adda ADT ee fadhigeedu yahay London loogu gargaarayo dadkaasi masaakiinta ah marka waxaan jeclaan lahaa iminka bal muuqaaladii iyo si xaaladda tahay in farsamada xaggeeda bal aynaad haya waa dadkii dhibaataysnaa ee abaaraha ugu dambeeyay oo iminka aynu tagnay dhammaan goobahaasi socdaal dheer ay hay-adda ku tagtay si ay usoo xaqiijiso dhibaatada baaxadda iyo sida ay wax yihiin markaa kadib ayaa waxay soo gudbisay muuqaaladan oo ahaa kuwa lasoo qaaday muddo 20 casho ka hore ah wax laga sheekeynayo oo la yiri ma ahan waa wax iminka la tagay oo la soo arkay oo halo assalaamu calaykum وعليكم السلام walaal hayo walaal magacaaga waan fiicanahay walaal alxamdulillah walaal farmankan ka hadlaya hayo walaal magacaaga marka walaalo waxaanu ku arkaynaa halkan dee ummad aad iyo aad u dhibaataysan ilaahayna waa qafuur raxiim ilaahay ayaan baryeynaa annaka waxba ma deeqsiin karno waxbana ma awoodi karnaan nacam waa sidaa wey ha ilaahay raxmadiisa ayaan baryeynaa ilaahay inuu raxmadiisa walaal magacaaga insha Allah iyo wixii aad ku deeqays khayr la ku siiyo walaal magacayga waa Axmed walaal hayo Axmed hayo booyadii biyaha $400 ayaa la yiri biidn illaahi kariim walaal waa soo dirayna hal booyada ay anaga iyo gabdha saaxiibada insha Allah Axmed jazakallahu khayran adiga iyo gabdhaha waliin duceynaya Sheekh Xuseen Axmed waa qofkii ugu horeeyay inaga soo wadanka Jarmalka iyo saaxiibadeed booyadii 400 ahayd waa qofkii 17aad weeyaan hadda inuu 8-9aad weeyaan aan marayna oo nagu dambeysay Jarmalka marka gabadhii waxaa ka horeysay Norway ka soo hadashay marka Jarmalkana waa qofkii ugu dambeeyay ee ka soo hadla wadamada ka baxsan UK ee Yurub taasi ah marka Axmed duca ay codsanaysaa iyada saaxiibadeedba waa loo duceeyay ilaahay waxaan ka baryaynaa inay waxay ku faraxdo ilaahay tuso ilaahay waxay ku faraxdo inuu ilaahay tuso adduunka tuso aakhirana tuso oo jannatul firdaws ilaahay uu geeyo oo waxa weeyaan himmadu waa qofku inuu himmad sareeyo oo wax wanaagsan uu ku fakaro oo yiraahdo waxa rasuulku wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam ida sa'altum allah fas'alu allah al-firdaws fa innaha a'la al-janna wa awsad al-janna yani qof mesela hadii aad ilaahay baryayso wax weyn baa ilaahay la weydiista buu leeyahay rasuulku jannatul firdaws weydiista marka iyagana ilaahay jannatul firdaws ha geeyo caruurtooda allah u xifdiyo naftooda allah u xifdiyo diintooda allah u xifdiyo آمين آمين شيخ حسين واسدة الشيكتي أحمد خير الله سيو ودك جرم كسو هذا الشيء dadka gadaal naga soo biiray waa barnaamijkii abaaraha biyaha lagu dhaaminayo dadka masaakiinta ooman booyada qiimaheeda waa $400 weeyaan waxayna qaadaa 32 fuusto ilaa 34 fuusto ay booyadaasi qaadaa qiimaheeduna waa $400 weeyaan marka 34 fuusto oo biyo ah oo $400 lagu iibiyay qiimaha iyo dadka ay waraabinaysa waa dareemi karaysaa iyo marka aad bixinayso waxa aysan kula joogin dhammaan dadkaasi dhibaataysan abaaraha iyo oonka hayo hal madiqad ama hal deegaan kuma eka waa dhammaan dhulka Soomaaliya ay degto weeyaan marka dadka Soomaalida ay ku nool gudaha Soomaaliya oo dhan ayaa la gaarsiinayaa abaaraha ee asaameeyeen ay hay'adu gaarsiinaysaa biyaha gobol kasta iyo tuulo kasta ee joogaan way u tagi doontaa hay-adun waa bilaa xuduud weeyaan oo madiqad kasta inay tagta access ay u leedahay ama waxay u haysataa kalsooni wanaagsan ay meel ku tagaysaa meel gaar ah ay ku xayiran tahay ama mandiqad gaar ay ka shaqeyso ama dad gaar ay u shaqeyso midna ma lahan dhammaan deegaanada Soomaalida ay degaan ee geeska Afrika iyo hay'adda gaarsiinaysa mashruuca ama barnaamijka biyo dhaaminta lagu gargaarayo dadka abaaraha ay hayaan oo biilaanta ah sidaas oo kala roobkii ayaa 2 bilood kadib Google la sugayaa roobka ka hor ayaa la rabaa qof kasta wuxuu geysan karaya inaad ka geysato qof walbo maanta wixii aad geysato بريت أيها هلسا مدة لبعض ما أنت يكون بهاي متك أومن أو دبان أو أنك جيت كلاس فديو هدي بريت راب كوي ماذا لو بلود كدي راب كوي ماذا قف كاس كوم باهنا وحاجنا وحكومة ترين قف البو ما أنت واحد جيستا بريت أيها هلسا وحكي خير بدن أو كونك بدن بويدي بيها وأفر بقول أو جنويان إلا هذا بويدي بيها يا سعودة قوسسك علمه هذه أضياش دمان إمك برنامج كتوس أي أول سعودان قارب هذا صوت وكذا أشيه
qaar baa hadda sii seexanaya qaar baa hadda mataqaanaa shaqooyin ka yimid qaarna waxa weeyaan guryahooda ayay joogaan oo waqti fiid ayay u tahay dhammaan waxaan leenahay barnaamijkaasi abaaraha dadka masaakiinta loogu gargaaraya inaad qayb qaataan asalaamu calaykum waraxmatullah asalaamu calaykum waraxmatullah عليكم السلام ورحمة الله walaal magacaaga waa barnaamijkii abaaraha walaal waan idin salaamay salaamullah marka walaal waxaan idin weydiin lahaa ha meel aan Soomaali ahayn biyo dhaaminta ma laga bilaabi karaa sida hadda bilintalan meel borderka Soomaalida iyo Ethiopia xadka meesha Soomaalidu degto meesha la yiraahdo bilmatalan tariiqo kale ma la gaarsiin karaa hadda hay-adda waxa ay ka shaqeysaa waxa weeyaa waa dhulka dad Soomaalida ay ku nool yihiin weeya marka wadan gaar ah iyo meel gaar ah oo hay-adda ay ku xayirantahay ma lahan marka intii awoodda ay noo saamaxda iyo duruufta ka jirta deegaanada dhammaantood biyaha ayaan gaarsiin doonaa hadday ahaan lahayn xuduudaha Kenya ilaa iyo xuduudaha xagga Ethiopia ee xiga Somaliland ilaa iyo kuwa Kenya iyo Soomaaliya xaggooda iyo koonfur Soomaaliya Somaliland iyo gobolada kale oo dhan biyahaasi waa la gaarsiinaa insha Allah waxa weeyaan haddii qof baahan oo ooman aad ugu talagashay calooshiisa insha Allah way ku dhacayaan maanta maalka wanaag badan oo arkaysaa walaal magacaaga halkaas soo hadlayso waayahay gabadhay uu ka go-ay marka jawaabtii waxay noqonaysaa Soomaalida dhibaataysan oo ooman in hawshan loogu talagalay ee ku nool dhulka geeska Afrika bal xagga farsamada inuu eegna dadka noloshooda sida ay tahay muuqaaladaasi oo ah kuwa hay-adda ay soo qabatay wax ka yar 20 casho ayay soo qabatay waana muuqaalada ugu dambeeyay weeyaan marka xagga farsamada ayaan oran lahaa in barnaamijkaasi ay bal in yar naga tusaan si wixii ugu dambeeyay dadweynaha adduunka ay la socdaan hayo qolada farsamada hadda ilmahaas yararka kabaha ay xirtaan wajigood waxa ka muuqda dharka ay qabaan hooyada Soomaaliyeed ee wadada dheer ee laamiga lugeynaysa daad ay jirto iyo sida u rafaasan tahay iyo marada ay hugsan tahay iyo cidda hortaagan oo wareysanaysa oo markaas soo tabinaysa xogteeda iyo waxay ku nooshahay waa hay-adda ADT weeyaan oo la kulantay marka xaqaa'iqda u dambeysay ee hooyadaasi iyo hooyooyin kale oo badan oo kaamaradaasi aysan noo soo qabanin markaynu meesha tagnay ayaa jira oo meelo fofo ku nool qof kasta waxaad ogaataa hooyadaasi meesha taagan inay jiraan kumanaan kun oo hooyo adiga hooyada haddii maanta Yurub kula joogta adiga hooyada haddii maanta Khaliij kula joogta adiga hooyada haddii maanta ay kula joogto meel kale oo mataqaana sariir ay ku jiifto wanaagsan hooyada haddii cabaysa biyihii ku jira caaga haddii hooyada u soo karaysa boorashka u qasayso hooyadaasi Soomaaliyeed ee dhibaataysan ee dhibaatada ka muuqata ma haysato ogow hooyadaas iyo hooyadan waa isku xuquuq weeyaan daadaas ayay jirtaa cid u maqan ma lahan adigaasi walaalka ah ayaa wax ka suwaysaa Sheekh Xuseen waxa soo aroortay aayad Qur'aan oo Ilaahay Subhanahu wa Ta'ala ku leeyahay dadka masaakiinta waxa la siinaya la nuriidu minkum jazaa'an wala shukura Sheekh Xuseen haya نعم يعني وحويان دتك هدي أهل خير كاهي marka ay wax bixinayaan uma bixiyaan yani wax ciwad waxa ku soo laabtay oo wax kugu soo noqdeen ilaa wuxuu leeyahay masalan ba inma nud'imukum liwajhi Allah la nuriidu minkum jazaa'an wala shukura inna nakhafu min rabbina yawman abuusan qamdariran yani waxaan u bixinaynaa waxa aan bixinayno waxaan u bixinaynaa ilaahay darti waxa weeye camalkuna wuxuu saxiix yahay oo uu masalan ba adduun iyo aakhiraba wax ku taraya markuu khaalisan liwajhi Allah ilaahay darti markaad wax u bixisid